dadkan aqoon-yahanada ah ee reerkaaga ka soo jeeda ma waxa leedahay xaq uma laha ma tartami karaan sheekada waa meesha ma taagna ilaa maxamed siyaad yaxarnimo in la tiraa la rabo oo la yiraahdo saas baa tiin marka weli wixii waa jiraan cunsurnimadii waa jirtaa faquuqi waa jiraa laakiin dad soo baxayaan nahay kadibna dadkooda baraaya maanta in la dhihi karo yaxaraan ah tumaalaan ah jibraan ah musidharyaan ah ma dhibaana ahay maanta in la dhihi karo aan gaarsiin maxaa abtiyaasha iyo kursiga iska galay صح absolutely waaba igu indha ku shalsi cadaadis u dareem gabar baarin la dhaho waxay si cad u sheegtay in kursigaaga ay haminayso ayna u baahan tahay waa lagu qasban yahay reerkayga inay keenaan cidii ila tartami lahayd laakiin yaxar unbaa ila tartamaysee reero kale kursiga ma qaadan baarliin miyaa qabiilka la ah anigu maba aqaana qofka ay sheegaysa laakiin waxaan kuu sheegayaa kursi yaxar wiil iyo gabar baa igula tartamaya reerku ka imaanaya waxaa duuban muuqaal ah si cad u leedahay haddii la helo qof ila tartama qarashkan ka bixinaya ma la tartamayay waa u tanaasulaa ma dhihin sidaas sidee hadda u leedahay waa ku kalsoonahay madaxda Hirshabeelle madaxda Hirshabeelle horta aan kuu sheego kuraasta dadka shaqo kuma laha wasiir waxaa rabaa in isugu qawadsiisid haddii la helo qof ila tartama af Soomaaliyeedan aqoon iska dhaafaya maya iyo waa tartan aan ka qayb galaya har maba imaanin teeda kale anagu ugaas ma qabno sultaanan qabno heshiis ma la tahay habinkaas heshiisku maxay aniga waxaan rabaaba dhowr iyo 30 sano 40 sano inaan sidii John Biden haddaan noolahay cagacagay muuqaalkan waxaa daawan doona qof dhalinyaro ah wax bartay oo reerkaaga ah hamina kale siyaasadda marka hadalkan dhahdid muxuu dareemi karaa kan yaxara waa ogol yahay kan kaloo dhagaysanayna shaqo ku mali haddii sanadkan aad xildhibaan soo noqoto codkaaga yaa siinaya ya